hagaag daawadayaal halkani waa xarunta iskuulka Afguriya Driver School waa iskuul lagu barto farsamada gacanta iyo sidoo kale makaanikada maamulaha iskuulkani Cabdijibaar Sheekh Afguriye oo ah mulkiilaha iskuulkani kuna soo kordhiyay shacabka magaalada Gaalkacyo in ay ku bartaan wadista gawaarida iyo sidoo kale sharciyada wadooyinka ayaanu waxaan la yeelan doonaa waraysigan sida tan ayuuna u dhacay waraysigeen ugu horeyn Cabdijibaar ku soo dhaw idiltiisa waad mahadsantahay waa ku dhawahay waayahay ugu horeyn maamul waxaan weydiinayaa bal waxaan nagu warbixisaa goormaad iskuulka furtaan aad iyo aad baan marka hore u salaamayaa idil TV booqashada aadna soo booqateen waa idinka mahadcelinayaa iskuulkan waxa uu furan yahay bishii 6aad ee sanadkan 2021 ilaa bishan Oktoobar hadda maanta 12 ah waa muddo yar oo gaaban muddadaas uu iskuulkani furan yahay hadda waayahay maxaa kugu dhaliyay bal in aad bulshada reer Gaalkacyo iskuulkan aad ku soo korisay aad iyo aad baad mahadsantahay waa su'aal muhiim ah weeye anigu waxaan ka mid ahay dadka reer Gaalkacyoodka ah wadankana muddo ka maqnaa muddo sanad ayaan hadda wadanka joogay muddada aan joogayna waxaan watay baabuur run ahaantii waxaan la kulmay intii aan Gaalkacyo joogay khaladaad badan iyo dhibaato badan oo ka jirta dhinaca baabuur wadista darawalnimada dadka dhinaca wadooyinka sharci darrada arintaas markii aan arkay waxaan u koorgalay oo baaritaan ku sameeyay aqoonta dadku ay u leeyihiin dhinaca sharciyada wadooyinka iyo habka yani professional drivers ama technical driver sida baabuurta loo kaxeeyo waxaan dareemay in aqoon darro badan ay jirto markii aan arinta ogaaday waxaan jeclaystay inaan dadkayga wacyigelin u sameeyo fikir waxa igu soo dhacay ama igu dhashay ah inaan idaacadaha ka bixiyo cashar ku saabsan wadista baabuurta iyo sharciyada ka bacdina arintaas ma suurto gelin waxa markaa talo laygu siiyay maadaama aniga professionalkayga ama shaqadaydu ay tahay darawalnimo iyo aqoonta sharciyada gaadiidka in aan dadka u furo meel waxbarasho ama dugsi tababar darawalnimada laga barto makaanignimada fudud laga barto maxaan ku yiraahdaa iyo sharciyada wadooyinka laga barto taas baa marka waxa weeye waxay keentay in aan maartay iskuulka furo waayahay bal ka waran markaad iskuulkan aad furtay sidee uga falceliyeen bulshada ku dhaqan magaalada Gaalkacyo run ahaantii waxa weeye bulshada reer Gaalkacyood waxa weeye waxay ka mid yihiin ama waxa saameysay duruuftii ama dhibaatooyinka ku dhacay wadanka Soomaaliya markuu burburay wax waliba waa burbureen waxa burburay maaragtay maxaan ku yiraahdaa dhinaca caafimaadka dhinacii maxaan ku yiraahdaa sharciyada dhan walba dadku waa ka burbureen muddada intaas la eego dawladda Soomaaliya ay burbursadeenna waxa weeye dadku waxa weeye hadba duruuf iyo marxalad bay iskaga ku jireen dadka reer Gaalkacyoodka ah waxa ku dhacday laba shay baa ku dhacay ama laba dhibaato mid waxay ahayd macrab ay tahayba dhinaca wadooyinka oo wadooyin fiican ma haystaan tan kalena waxa weeye waa dhinaca sharciga markii aan dhinacii sharciga aan culayska saarnay runtii dadku aad bay arinta u soo dhaweeyeen waxa ardayda hadda maartay difcada ugu horeysa ka qalin jabinaysa difcada ugu horeysa arday waxa kamid ah China ka yimid arday Europe ka timid arday Mareykan ka timid kuwa reer Gaalkacyooda dhamaantood waxa weeye baabuurta waa dhigteen waxayna jeclaysteen inay sharciga marka hore ay bartaan marka waxay maartay aad bay u soo dhaweeyeen runtiina waxay ay sheegeen oo ii sheegeen inay tahay fursad ka bannaan ama wax maartay baahi weyn loo qabo inay tahay watahay bal Cabdijibaar maxaa kamid ah waxyaabaha ardayda aad bartaan oo hal iyo laba aan uga taaban kartid oo dhanka shuruucda gawaarida iyo sidoo kale kuwa baranaya makaanikada idil TV aad iyo aad baad mahadsantahay su'aashaasi waa su'aal muhiim ah ardayda waxaan barnaa wax la yiraahdo traffic science afka qalaad ama Englishka
ama road signs waxa la yiraahdo sharciga wadooyinka sharciga wadooyinka waxa weeye wadadaas la iskuma dhaafi karo halkaas wada khatar baa ka jirta laba baabuur ma wada gudbi karto baabuur halka ma geli karo sharciga wadooyinka oo ay noocyadaas ay ka mid yihiin traffic signs ka oo noocaas oo waxa weeye universal international macnaha sharcigii caalamiga oo traffic signs ka oo wadooyinku saabsanaa oo ardaygu uu maaragtay waxa weeye haddii uu Yurub tago iyo haddii uu Afrika tagaba uu yahay qof aqoon u leh macnaha sharciga wadooyinka oo aanu barno traffic signs ama road signs waxa la yiraahdo waan barnaa waxaan kaloon ardayda barnaa waxa la yiraahdo mechanical light waxa weeye makaanignimada fudud weeye oo macnaheedu ay tahay qofku inuu engine warning light uu garanayo nalalka digniinta motorka inuu garanayo gaarigu hadduu ka kululaado inuu maartay cilada fahmi karo waxa weeye olyadii haday maartay waxa weeye ku soo shido oo nalkii guudna uu ku soo baxo inuu gaarigii uu fahmi karo khaladka ka jira taayiradii inuu bedelan karayo nalalkii inuu bedelan karayo waxyaalihii fududaa oo aan ahayn motorkii in la furo iyo macnaha waxa weeye dhinacaas maartay aan ahayn يعني إنه بابور كقف فهمي كره علة كهيسته أو صنقن يعني ليده يجي يومارت وحوي واقحين يا كريم مركب وحن صميني شرعية سوا ديارني أو كمبليدا وحن كلام ديارني لبضع بوب أو منه ويهي برشة بابور وقف بابور وبرني وحو ككوبيه مننا أي تهي معناها بوب إن شرعية دي علامة oo wada socda wuxuuna ku baxayaa afka Soomaaliga baan ku bixinaa si wanaagsan marka ardayga xiiseynayo kale in uu xaruntan uu ku soo biiro intee bilood lagu dhameyn karaa oo ku noqon kara dareewal buuxa aad baad u mahadsan tahay waxa weeye horta iskuulkan noocan oo kala waa iskuulka maaragtay waxa weeye magaalada Gaalkacyo iskuul ka furan oo noociisa hadda waa noocii koobaad weeye iskuul garow ka furan baa jira oo sida iskuulkaygu u shaqeeyo kala u shaqeeya inkastoo ay facilitate badan leeyihiin oo baabuur badan leeyihiin oo rag guruba ay yihiin haddana markii aan eegay sharciyadoodii waxooda waxa weeye isku qaabaan wax u barnaa ardayda iskuulka noocan oo kala horta waxa loogu talagalay u yaraan 6 bilood markii la rabo in qofku uu noqdo driver skills yani inuu yani xirfad darawal xirfad lam inuu noqdo marka la rabo ugu yaraan 6 bilood baa loogu talagalay laakiin markaan fiirinay duruufta xagga dhaqaalaha iyo waqtiga dadka waxaan sameynay dadaal dheeraad waxaan goynay ilaa 3 bilood 3 bilood baa waxaan ku soo ururinay in iskuulka ardaydu kaga takharuji karto oo ay kaga bixi karaan dhaqaalihii iyo wixii iyo markaan arrintii hore isla jaan goynay muddadaas laakiin sida caadiga waa 6 bilood ilaa sanad weeye markaad fiiriso cadadka ardayda wiilasha iyo gabdhaha barkee badan baa is leedahay oo baranaya xirfadda darawalnimada iyo makaanikada aad baad mahadsan tahay runtii waxa weeye waxa wax lagu farxaa inay dumarku ay runtii ay ka jecel yihiin ilaalinta sharciga ama ay mas'uuliyad ka culus dareemayaan raggu ay dareemayaan oo dumarku halkaas way ku amaanan yihiin waana ku mahadsan yihiin ardayda iskoolkan wax ka baratay oo hadda ka qalin jabinaysa waxa ugu badan waxa weeye waa gabdhaha wiilashuna waa joogaan laakiin gabdhuhu aad iyo aad bay waxa weeye ay isaga saareen mas'uuliyad inay maartay si nadiif ah baabuurtooda ay u wataan boorad aad ku dhajisay waxa weeye wadooyinka waaweyn ee magaalada Gaalkacyo kuwaasi ay calaamado ay ku dhigan yihiin ma iskuulka oo maxaysiis u tahay mise waxa jira calaamado gaar ah oo yaani aad bulshada wax ugu iftiiminaysa bal walaal waa su'aal muhiim ah weeye aad baad mahadsan tahay waxa weeye run ahaantii horta waxa weeye wax kasta waxay u baahan yihiin isxilqaan iyo isku tashi bay u baahan yihiin waxaan sameeyay hadda boorar isku tashiya oo anigu aan iskay u sameeyay boorarkaas isku tashiga waxa weeye tilmaantii ugu horeysay oo aan qaaday iyo talaabada ugu horeysay weeye waxa ku yaala boorkan calaamado bal calaamadahaasi waxay tilmaamayaan haddaad bulshada u iftiimso waxa weeye calaamadahan ama tabeelahan wuxuu ka mid yahay tabeelaha aan ugu talagalnay si tabarucaad ah oo isku tashiya inaan uga sameeyno magaalada tabeelahan waxa weeye saad aragtaan calaamadan hadda waxay tilmaamaysaa calaamadaha khatarta ah bay ku jirtaa oo digniinta ah waxaa loo digayaa qofka in wadada ka horeysa ay tahay wada jiira ah jiiradaasina ay tahay jiira khatar ah
markii jiiro khatar soo baxdana waxa weeye qofka waxa digniinta lagu siinaya inuu socodka uu khafiifiyo oo baabuurka si tartiib ah u wado tanoo kale waxa weeye waxay tilmaamaysaa wadada isbitaalka Gaalkacyood jidka isgoyska ah in maaragtay uu yahay jid khatar ah oo jidkaasi uu yahay jid isgoysa jid weyn oo laba jid oo yaryarna ay ku soo dhacayaan midna uu kan yahay midna uu ka imaanayo dhinaca kale oo maaragtay maxaan ku dhahay qorrax ka soo baxa sidaas darteed iyana waxa weeye waxa lagaaga digayaa inaad maaragtay waxa weeye aad si xooga u soo baar calaamad kale oo iyaduna nooc kala bal calaamadahan oo kalena hadaa sharaxaad naga siiso walaalaad baad u mahadsantahay idil TV waa wadadii isbitaalka Gaalkacyood tagaysay oo durdur aadaysay jiirooyin dhowr baa jira oo isku aadan waxa weeye laba baabuur iskuma dhaafi karta weeye oo yar yar waxa kale oo ka horeysa weeye jiiro khatar ah oo ilaa 90 digrii ah marka waxa weeye waa calaamadihii aan ugu tala galnay inay dadku ay ka faa'iideystaan laakiin nasiib darro waxa weeye dad badan baan fahansanayn marka walaalle waxa weeye calaamadan waxa weeye waa mamnuuc laba baabuur oo yar yar iskuma dhaafi karta bulshada daawad doonta hadii Ilaahay raali ka noqdo waraysigan inay wax badan ka fahmi doonaan insha Allah waxaan iminka u soconnaa wadada dheer laamiga dheer ee Cumar Samatar ayaan u soconnaa waxa ku yaala barar noocan oo kala ah isku qaab maahan midba wax gooniye ka turjumaysa na soo raaca daawadayaal halkani waa laamiga weyn ee hormara iskuulka Cumar Samatar School waa goor ay ardaydu xiisadaha ay ka soo baxeen guryahoodii ay hooyanayaan wadaduna ay aad mashquul u tahay waa boor kale iyo waliba Cabdi Jibaar calaamada kuwii aynu hore u soo aragnay ayaa waxa weeye kuwa duwan ba halkan ku sawiran bal sharaxaad iyaga hadda naga siiso idil TV aad iyo aad baad u mahadsantahay waxa weeye boorarkan waxay ka mid yihiin boorarkii isxilqaanka ahaa ee iskuulka Afguriya Driver School uu sameeyay waxa weeye boorarkan saad arkaysaan calaamadan waxa weeye waa digniin looga digayo ardayda halkaan maraya ama maraysa iskuulka Cumar Samatar baabuurtu inay iska ilaaliyaan calaamadu markay noocaas oo kala noqoto saddex gees noqoto macnaheedu waxa weeye waa digniin lagu ogol yahay wadada baabuurtu way mari kartaa laakiin waxa la rabaa iskuulka ardayda galaysa in la iska ilaaliyo la xaq dhowro priority-ga ay yeeshaan markay ardaydu iskuulka ka baxaan iyo markay galayaanba wadadana sida aragtaan waa wada jam ah oo aad iyo aad busy u ah waxaan u raacinay calaamada kale oo stop macnaheedu waxa weeye mar walba baabuurku wuxuu ku khasban yahay markii uu arko dad ama arday meesha maraysa inuu istaago halkaan oo kale waxa weeye zebra cross ayay u dhigantaa maadaama ay tahay albaabkii iskuulka laga galiyay waa meeshii dadku ay ka gooynayeen iyagaana ka xaq badan baabuurta oo xaqa koobaad waxa iska leh ardayda meesha maraysa iyo dadka caadiga ah ayaa iska leh marka calaamadaas waxa weeye waa ka joogso ardayda calaamadan waxa weeye ka joogso ilaali ardayda arday baa maraysa iskuul baa ku yaala weeye daawadayaal kaasi waxa uu ahaa Cabdi Jibaar Sheekh Afguriye oo ah maamulaha iskoolka Afguriye Driver School xaruntiisa magaalada Gaalkacyo sidoo maamuluhu inoo sheegay waa iskool lagu baranayo sharciyada wadista gawaarida qaybahooda kala duwan iyo sidoo kaleba makaanikada waraysigani waxaad la socodsiinaysaa aniga Nimca Fiyoora waxaadna kala socotaan idil TV intaynu ku kulmi doono waraysigani waraysi lamid ah sidaas iyo noole kulantay